بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan idin lahaantiinba daawadayaal saaxiibayaal halkani waa warbaahinta qaranka TV oo aad kala socotaan wararkeena joogtada ah ee ka dhacaya guud ahaan caalamka gaar ahaan gayigeena hooyo daawadayaal waa anigoo ah Axmed Nuur taariikhdu waa 16 bisha 6aad sanada 2020 maalin Talaada daawadayaal ku soo dhawaada wararkeena qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah warar farxad leh oo soo taraya kuwaas oo sheegaya in xitaa wax kale iska dhaafe ay madaxda Somaliland iyo kuwa Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka wada hadleen sidii loo difaacan lahaa kiiska badda isla markaana Kenya la iskaga dhicin lahaa maadaama ay tani tahay dhaxalka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda wixii intifaacsan lahaayeen daawadayaal qodobo xasaasi hor leh ayaa marka ka dambaysa soo baxaya oo kulamadii ka dhacay dalka Djibouti xaqiiqdooda ah isla markaana waxa daaha gadaashiisa ka socday ay dadku aysan ogsooneen ayaanu ku dadaalaynaa inaan xogo tafatiran ka helno daawadayaal Somaliland madaxweynaheeda oo ku wargeliyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la tuso arrimaha ku aadan iyo waraaqaha habka ay hawsha u socoto ama dacwadda maxkamadda ICJ taala iyo xeerlaaliyaha qaranka oo hore loo soo kaxeeyay ayaad wararkeena ku daawan doontaan si loo tuso madaxda maamulka Somaliland oo ay marwaadno maamada aqoon-yahanada ay ku jirto dhinaca kale Kenya iyo walaalaha Djibouti ayaa isku haysta kursiga qaramada midoobay ee aan joogtada ahayn ayadoo maalinka bari ah uu dhici doono codaynta isla markaana loo baahan yahay in loo soo duceeyo dalka walaalahana ee Djibouti madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markale Facebookiisa soo dhigay qoraal aan caadi ahayn kaas oo kula dardaarmayo madaxda Soomaaliyeed in jiilasha soo socdo mustaqbal wanaagsan looga tago ilaahay ha u naxariistay waxa dhintay aabihii dhalay Ilhaan Cumar oo ku geeriyooday dalka Mareykanka iyo waliba Masar oo markale hanjabaad hawada u marisay Ethiopia sheegtayna hadii ay dhaga adeega joojiyayso Ethiopia in ay talaabo aad qaadi doonto daawadayaal falaqaynta commentiga ayaa intaasi sii dheer iyo faahfaahinta dadka walaalaheena Soomaaliyeed fikirkooda wanaagsan oo aan soo qaadan doono waxaan idin codsanaynaa intaan u gudagelin barnaamijkaas iyo wararkaas oo faahfaahsan ina barteena YouTube-ka subscribe tirahdid si aysan kaaga dhumin channelkan uusan kaaga dhumin ama aad uga amba sidoo kalena gambaleelka furto si aad u hesho wararka joogtada ah ee aan soo gudbinno daawade like saar muuqaalka oo naga hilmaamin haddii aan ugu horeysiino Cabdulqaadir Muxiidiin waxa uu yiri mudane Axmed Nuur waan ku salaamay waan ka qaaday walaal qaali walaal wuxuu yiri waxaan joogaa Muqdisho aad baan u soo dhaweynayaa heshiisyada laga gaaray tabashadii walaalaheen reer waqooyi guul baan rajeynayaa insha Allah Soomaaliya ha guuleysato nabad baana deeqda Soomaaliyeed ayuu yiri walaalkeen waan uga mahadcelinaynaa iyo dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ee guud ahaan nagu taxan isla markaana fikirka wanaagsan soo dhiibanaya daawadayaal wali waxaanu idin sheegaynaa in aan macluumaad aan ka soo ogaanay dad warbaahintan qaranka TV daba dhigtay isla markaana ka daba qaatay warbaahintan ay u jeedaan hoose calaamadda yelowga ama jaalaha uu saaran yahay qaranka TV la baxday magaceena ay naga daba koobiyeen 271 video ayaa ku jira xaqiiqda waxaan soo ogaanay in mucaaradku ay leeyihiin warbaahintan oo ujeedada loo samaystayba ay tahay waxa horta wariye ka ah yar horay gacan yaro ugu ahaa ama rag la shaqeey jiray kamid ahaa Shariif Sakiin madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ama barasaabkii hore ee Koonfur Galbeed gacan yaro waxa ayaa wariye ka ah waxaana u furan ilaa iyo waa 7 nin oo isku xiran meelahaas 3 page oo madaxda qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaciisa lagu sameystay iyo ra'iisul wasaaraha ayay furteen sidoo kale page hore oo nabad iyo nolol ay furteen ayaa jiray oo madaxda xisbiye qaran ay ku wareejiyeen waare qaarkood Nairobi ay joogaan sida aan wararka ku helayno mushaar ayay waxay si toos uga qaataan madaxda xisbiye qaran channelkan iyo channel kale ayay sameystaan oo magacyada dadka ayagoo daba galaya waliba ayagoo daba dhiganaya ujeedka ugu weyn waxay tahay shacab badan inay marka hore sumcadda nabad iyo nolol iyo taageerada iyo aasha nabad iyo nolol ay ku sameystaan ama ay aruursadaan hadhow kadib marka doorashadu ay soo dhawaatana in magacyadaas loo gadiyo himilo qaran ama UPD ama xisbigan kale Cabdullaahi Algaas ama Shariif Sakiin ama madasha qaran ujeedka ugu weyn oo ay leeyihiin waa arintaas daawadayaal ka digtoonaada waxay iska dhigayaan kuwa taageersan madaxda nabad iyo nolol ama dawladnimada Soomaaliya si ay dad wanaagsan u helaan kadibna ay u rogaan ama u dhol rogaan magacii ay markaa isticmaalayeen oo ay dadka ku qabsadeen marka qaranka TV waxa uu ka digayaa dhibaatada ay keeni karaan iyo qalbi jabka hadhow ay ku keeni karaan markay ummadda ay beejajka iyo YouTube-yada
ay been magaca intay ku qortaan iyo dad koobigiisa hadhowna dhibaato u geystaan daawadayaal ogeysiiskan iyo fariintan aan dirayno digniinta mid lamid ah ayay xataa naga daba dirayaan wararkeena ayay qaadanayaan si toos u koobiyeenayaan macluumaadyadeena ayay sameynayaan waan ka xunnahay waayo dad badan ayaa soo qoray Axmed Nuur ma warbaahin kale qaranka TV ayaa leedahay ma isla shaqeysaan waxyaabahaas weeyaan waxaan ka dhimanayo ma ahan wax kale oo aan ka diidayo ama culays ugu hayaan ma jiraan daawadayaal sidaad ogsoontihiin ba magaalada Djibouti waxa ka dhacay shirkaas oo nuxurkiisu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed ee walaalaha loogu mideey lahaa isla markaana midnimadooda iyo wanaagooda looga talin lahaa si kastaba waxa soo baxaya warar dheeraad ah oo marka ka dambaysa aan soo dhagdhageynayno haatan waxayba ku biyashootay in madaxda Soomaaliland oo ugu horeeyo Muuse Biixi Cabdi Marwo Adno iyo waliba aqoon-yahankii kale ee shirkaasi ka qayb galay inay dalbadeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ka soo degin kaligiis magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee uu soo kaxay ama hore u soo qaado xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee cusub ee gacanta ku haya arimaha kiiska badda ee maxkamadda Hague ama ICJ hor yaala si la isku laafaguro isla markaana loo talageliyo ama madaxda Soomaaliland waxay codsadeen in laga talageliyo arintani isla markaana ay tahay arin masiiri ah oo ay qayb ku leeyihiin si kastaba daawadayaal waxa muuqata ifafaalaan inaba caadi ahayn waxay kala codsadeen arimaha ay codsadeen waxa kamid ah arimaha mucaawimada in loo madax banaaneeyo sidoo kalena arinta kiiskan badda laga talageliyo oo ay ka tala bixiyaan waxa gabi ahaanba la soo qaaday waraaqihii iyadoo la sheegay in madaxda nabad iyo nolol oo xeer ilaaliyaha qaranka iyo ugu horeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ay u sheegeen ama ugu bishaareeyeen madaxda maamulka Soomaaliland in hawsha ama kiiska badda ay meel fiican marayso maxkamadda ICJ-na ayba sheegtayba inay Kenya dib u dhigistu ay ahayd mid ayada lagu qancinayo laakiin ay go'aan ka soo bixi doona ay ku gowracan tahay si hadhow aysan wax hadlina waxa talaabooyinkan loo qaadayo ay yihiin arimaha noocaasa madaxda qaranku iyo madaxda Soomaaliland waxay isla rogrogeen isla markaana ay akhriyeen oo ay fiiro gaar ah u yeesheen dacwadihii hore ee la soo qaaday iyo guulihii ay soo hooyeen qareenadii u doodayay Soomaali iyadoo oo markaasi ay sheegeen madaxda Soomaaliland si kastoo siyaasad ahaan la isku hayo ama la qeyqeyliyo ama waxyaabo lagu kala aragtidoona haddana markasta in ay qadiyada ay aaminsanaayeen ay tahay inta ka kamid ah dhulka Soomaaliyeed aan nacab inuu gacan galo aan raali laga noqonayn si kastaba goorsii horeysay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin oo cadeeyay in kastoo ay Soomaaliya ama koonfur ay siyaasad ahaan isku hayaan haddana marnaba ay raali ka ahaanay taaka kamida bad Soomaaliyeed iyo biriga Soomaaliyeed in la qaato oo ay tahay dhul iyo bad ay Soomaali leedahay waxa Soomaali ay leedahayna ay tahay mid aan la taaba karin daawadayaal qaranka TV mar walba wuxuu idin soo ogaanayaa waxa wanaaga ah iyo walaalnimadu ay ku jirto xaqiiqda dhabta ah iyo waliba talaabooyinka wanaagsan ay hogaamiyaasheena qaadaan annaga oo mararka qaarkood ku dhaliilana cid kastoo talaabo xun qaado oo siyaasiyiin ah qaranka TV waa warbaahin u taagan qowmiyadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ma ahan mid qabiil ma ahan mid shakhsiyaad gaar ah cid kastoo talaabo wanaagsan qaada ayaanu dhiiri galinaynaa oo garab istaagaynaa si ay talaabooyinkan loogu sii laba jibaaraan madaxdeena waa uule amri waa abayaashan sida qaranka TV uu aaminsan yahay haddii ay wado wanaagsan ay qaadaan si wanaagsan ayaanu annagana u baahi doonaa haddii ay qabyaalad qurun qoqob xisbiyeysi xaasidnimo iyo waliba xiqdi ay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkooda ku indhisaabaana waan ka hortagi doonaa oo waan la dagaalami doonaa insha Allah biidnillah taasna waa waajibaadka warbaahineed ee qaran ee saaran daawadayaal haddii aan u soo wareegno Kenya naguma haysato badda kaliya laakiin waxay nagu haysaa dhibaatooyin kala gedisan Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti iyo dawladdiisa ayaa biri oo 17 bisha ay tahay June maalin Arbaca ku beegan waxa ay ku loolami doonaan 3 kursi oo ay dalal Afrika ku loolamayaan kuwaas oo la sheegay in laba kamid ay Tunisia iyo Algeria ay qaateen amaba meel banaan u yaalo halka kursiga kale ay Kenya doonayso in ay qaadato halka Djibouti oo walaalaheena siyaasadana door fiican uga jira mandiqada ay ku dhaqan yihiin dawladda Djiboutina isku keentay dawlado badan oo isdiidan oo saldhigyo ka siisay ayaa waxay rabtaa kursigaas iyada ka faa'iideysanaysa diblomaasiyadeeda qaangaarka in ay qaadato Soomaalida ayaa goor hore walaalahood u codeeyay iyagoo waliba xulufo kale u raadiyay kuwaas oo ay kamid yihiin Turkiga iyo dawlado kale Ethiopia ayaa shirka Djibouti intii uu socday 2 casho ka hor waxa laga codsaday in ay u codeyso dawladda Djibouti maadaama hore u shaacisay inuu codkeedu meel yahay oo Kenya yahay kadibna khilaafaad uu soo kala dhexgalay ayada iyo Kenya kaasoo sababay inay Kenya xitaa taageerto go'aanka Masar ay ku doonayso ay ku cambaareenayso arimaha biyo-xireenka oo ay wado Ethiopia taasoo Ethiopia rogay go'aankeedii isla markaana ay dhinaca kale ka soo jeesatay sida ay wararku nagu soo gaarayaan si kastaba Kenya kursiga ay qaadanayso ayay ujeedada ugu weyn ee leedahay waxay tahay inay badda Soomaaliyeed ay ku xalaalaysto
arrimaha kale oo siyaasadeed iyo culaysyada ay Soomaaliya ku haysana in ay kaga difaacato golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo haddii kursigan ay hesho ay noqonayso dalalka waaweyn ee caalamka ee fiitooda leh xataa ay weji ka raadinayaan maadaama codkeeda lagu xisaabtamayo hadhowna abaal laga sii dhiganayo lagana yaabo arrimaha badda iyo waxaas oo dhan inay qaramada midoobay ay tiraahdo dawladaha fiitooga naga taageera oo arrimaha soo dhex gala si kastaba inay ku guul dareysataan rajaynaynaa haddii ku guuleysata xataa wax saas insha Allah lama rajaynayo in ay yeeli doonto laakiin walaalaheen Djibouti ayaan ilaahay uga rajaynaynaa in ay ku guuleystaan oo ay kursigaas noo soo qaadaan maadaama uu noqonayo mid ay annaga nagu difaacaan oo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo masiirka Soomaaliyeed ay ku difaacaan daawadayaal waxa wali isi soo taraya hadallada uurka bilaadanka ama Soomaaliyeed rogaya marka la dheehdo ama la akhriyo ee uu soo jeedinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laftigiisu uu erayo aan inaba caadi ahayn wadnaha taabanayo hore u jeediyay goor uu shirki Djibouti ka hadlayay maalinkii shalay ahaa Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isaguna si wanaagsan u hadlay oo yiri inagoo af Soomaali ku wada hadlayna in loo kala turjumo waa wax ceeb ayay nagu tahay ayuu yiri waa inaan heshiinaa dad walaala ayay nahay waa inaan ummadeena mustaqbalkeeda ka talina saas ayadoo ay tahay ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalayba ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo waxa uu maanta haddana qoraal soo dhigay boggiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee saxda ah ma aan bogga carruurtan aan hadda idin sheegin ee haystaan iyo kuwa mucaaradka ee wararka beenta mararka qaarkood ay ku faafiyaan ee xataa madaxweynaha ma qof madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarahoodii u daahi waayay qaranka TV Axmed Nuur ka haraya waa bogga rasmiga ah oo ay ku jirto 200 iyo xoogaa kun ayaa ku jirta 300 kun ku dhawaad ayaa ku jirta bogga kale laakiin wax yar ayaa ku jirta ku kadsoobina iska ilaaliya qaybta Facebook waxa uu soo qoray carruurteena iyo jiilalka soo socda waxay istaahilaan inay ku noolaadaan mustaqbal ku dhisan walaaltinimo sida ay awooyaasheen hore inoogu iftiimiyeen waa xilligii aan ka tagi lahayn dhaxal taariikhi ah oo horseeda curashada jiil isku dan ah oo rajo wanaagsan kale mustaqbalkooda ayuu soo qoray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ku celiyo carruurteena iyo jiilka soo socda waxay istaahilaan inay ku noolaadaan mustaqbal ku dhisan walaaltinimo sida ay awooyaasheen hore inoogu iftiimiyeen waa xilligii aan ka tagi lahayn dhaxal taariikhi ah oo horseeda curashada jiil isku dan ah oo rajo wanaagsan kale mustaqbalka xilliga madaxweyne Farmaajo saan leeyahay xamar maanta waxa hees aan inaba caadi ahayn midnimada lagu taageeray ku soo qaaday walaalaha burco oo ah koox abwaana oo waa hore burca iskaga soo cararay dhowr bilood ka hor mar kale ayay midnimo ayay sacabka u tumayaan waxayna qaadeen hees aan inaba caadi ahayn oo waxaan ku leeyahay qalbiga Soomaaliyeed qulubta Soomaaliyeed soo jiidatay gadaal ayaan heestaas idinka soo gudbin doonaa insha Allah taala wararkeen xiga ayaad ku daawan doontaan xildhibaanada asalkeedu Soomaaliga yahay ee Ilhaan Cumar kana tirsan aqalka Congress-ka Mareykanka ayaa shaacisayna aabaheedu geeriyooday kadib fariin ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku leedahay Ilhaan Cumar ayaa fariinteeda oo muruga xambaarsaneed ku sheegtay inuu geeriyooday Ilaahay u naxariistay aabaheed Nuur Cumar Maxamed mana sheegin Ilhaan waxa uu geeriyooday ama uu sababsaday laakiin warar madax banaan oo ay saxaafadda Mareykanka ay qorayso ayaa waxay sheegayaan in aabaha dhalay Ilhaan Cumar uu geeriyooday xanuunka COVID-19 kaas oo tiro dad ah oo aad u fara badan ku laayay ama ay ku sababsadeen gudaha dalka Mareykanka haddii aan u jeesano dhanka Masar iyo Ethiopia Masar gaar ahaan wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa maanta kol sii horeysay waxa uu sheegay madax adayga iyo waliba diiditaanka Ethiopia ee in xal laga gaaro arrimaha masiiriga ah ee biyaha webiga Niil ay keenayso in tallaabo adag ay qaado dawladda Masar si kastaba ma ahan markii ugu horeysay ee ay Masar falax goodiso ama ay hanjabto oo ay u hanjabto Ethiopia inay ka qaadaso tallaabo laakiin waa tiraba dhowr jeer taas oo Ethiopia ay sheegtay inaysan biyaheeda gorgortan ka galeyn waxayna gantaalada difaaca ay dhigatay dalkeeda si ay markaas uga hortagto diyaaradaha khatarta ah ee ay soo gadatay dawladda Masar kuwaas oo casri ah qodobka ayaa warkeena ugu dambeeya qaybta falanqaynta dhanka hoose sida Muuse Biixi Cabdi ay u difaacdeen badda ama ay uga wada hadleen iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaad ka hadli doontaan fadlan subscribe ta hilmaaminaha like ta naga hilmaaminaha muuqaalkana sii share gareeya oo la wadaaga walaalaha Soomaaliyeed ee u hamuun qaba wararka wanaagsan ee aan dhilada xambaarsanayn